qaaday salaan lamidaan ku salaamaya nuur cali soo dhawo wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada dhammaantiin caawa mucaarad waan kacsannahay axmed j r mucaarad batay aad ba dadkan ugu baahanahay soo dhawaada alo walaal aad baan kaaga qaaday cabdikhayr maxamuud salaanta aad baan walaal kaaga qaaday salaan lamid oo sharaf leh ayaan ku salaamayaa from canada maxamed deeq reer canada aad iyo aad baan u salaamayaa aad baan idin salaamayaa dhammaantiin xasan cali aad baan kaaga qaaday walaal sidoo kale waan ku salaamayaa my day is good cabdiqaadir kulane walaal aad baan kuu salaamayaa aadna waad umahadsan tahay taysiir ibnu dhagaweyne aad baan kuusoo dhawanaya walaal dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa asxaabta qaaliga ah habeen wanaagsan inta habeenka ay u tahay maalin wanaagsan intay maalinta u tahay habeenka iyo maalinta iyo galabta iyo duhurka iyo hurdada iyo soo jeedka iyo dhammaan intaba ha idiin wacnaata ayaan idin leeyahay mucaaradka halkan waxba laguma fahansiin karo buntland ha noolaato aamiin dhammaan ummadda soomaaliya ilaahay ha nooleeyo nabad iyo nolol kor ilaahay ha ka yeelo aamiin salaama from germany reer germany aad baan idin salaamaya fiidnimo wanaagsan waxaan filaya aad fiidbad ku jirtaan ama galab maslax aad iyo aad baad walaal umahadsan tahay bayle aad baan walaal kuu salaamaya aadna waan kaaga qaadaya farxaan nahar soo dhawo walaal dhammaantiin aad baan idiin soo dhaweynayaa xiise jimcaale soo dhawo walaal maxamed mursal waan kaa qaaday walaal salaan lamida ayaan ku salaamayaa mucaarad oo cidina idiin joojin mayso may caawa calan cad baan caawa inoo sidaa dhammaanteen mucaarad iyo muxaafidba calanka cadi muxuu ka turjumaya horta saacadiyaa jawiga muqdisho aad baan kuusoo dhaweynaya wax filaya inaad muqdisho joogto salaanta walaal waan kaa qaaday dhiirane aad baan walaal kaaga qaaday aadna waan kuusoo dhaweynayaa bariise cabdilaahi walaal sidoo kale aad baan kuu salaamaya maxamed deeq cabdulqaadir maxamed dhaqane dhammaantiin aad baan idiin soo wada dhaweynayaa aadna waan idiin salaamaya caawa sheer baan idinka codsanaya ad halaysi sheergareeya barnaamijka habeenkii ugu horreeyaan sheer codsadee ha igu ceebeynina meesha barnaamijka iyo sheergareeya marka waan guda gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo horaan rabaa inaanu galo macaarad iyo muxaafid bacaawa halkanan ayaan uga wacayaa cabdikariin jaacan walaal aad baan kuusoo dhaweynayaa mahdi deeq aad baan walaal kuusoo dhaweynayaa happy mothers day maanta waa maalintii hooyooyinka miya maya dhinaca africa maaha laakiinse waa america keliya cabdulaahi ismaaciil warsame aad baan walaale kuu salaamaya aad baad walaal u mahadsan tahay somalilander maxamed aad baan walaal kuu salaamaya kuuna soo dhaweynayaa calanka cad waa isdhiibid sarender yaan isu dhiibaya taloyaanse iska dhiibaya insha allah dalal diinowgaas inbogos waan kuusoo inbogos karinaya waxaad u baahan tahay lakiin halkaa igu soo sheeg aad baan kaaga qaaday walaal sii sheer gareeya insha allah silaqa noo jiljilaa cibliis weliya gabadnimo soomaaliya ciilow gulwade aad baan walaal kuu salaamaya gulwade axmed maxamed maxamuud aad baan walaal kuu salaamaya waana kusoo dhaweynayaa cabdi maxamed axmed soo dhawo walaal nabad iyo nolol axmed xasan aad baan kuusoo dhaweynaya dhammaan asxaabta qaaliga igu ah aad baan idiinsoo wada dhaweynayaa caawa halkan mucaarad iyo muxaafid baana isugu wacay nabad iyo nolol kilimbe ina cabdi aad baan kuusoo dhaweynaya okay 600 baa la gaaray alxamdulilah haddaba intiina aan waxaan rajeynaya inaad sii wada sheer garayni doontaan haddaba caawa haddaan guda galo barnaamijka insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa qodobo runtii aada u muhiima dad halkaas waxa qaarkood igu soo qorayaan jiljilaac hamuujin de walaal cidaan aniga isu jilcinayo iyo cidaan isu adadkeynaya midina ma jirto jilicsanaan iyo adayg midina faa-iido ma keento qofku wuxuu yahay inuu ahaado unbaa muhiima iyo muhiimadiisa iyo ujeedadiisu meesha u socoto cabdixakiim nuur aadam aad baan walaal kusoo dhaweynaya long time karokac oo xijaab ma garanaya hadalkaaga somalilander maxamed oo aad baan ku salaamaya walaal
haddaba caawa halkan uma aanan soo fadhiisan ama uma aanan soo gelin inaan ka hadlo gabadha uu gaas u xiray maxaad u taageertay nabad iyo nolol. uma aanan soo gelin inaan ka hadlo gabadha lagu ceejiyey kililka shanaad ama deegaanka soomaalida Itoobiya ee ciidamada cabdi maxamuud cumar ay ceejiyeen. uma soo gelin inaan ka hadlo, kama hadlin. uma aanan soo gelin inaan ka hadlo maanta axmed madoobe iyo cabdiweli gaas iyo dhibaatada ay dalka iyo dadkaba ku hayaan. uma aanan soo gelin inaan ka hadlo dad baa xumaan dalka ka wada iyo maxaa dadkani sidan iyo inaan imaaraad dhaleeceeyo Itoobiya inaan dhaleeceeyo inaan cid kale maxaan ku rahdaa xumaanteeda aan halkan ka sheego. uma soo gelin inaan xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ammaan naga mudan oo aan ammaano. uma aanan soo gelin. uma soo gelin dhammaan inta xumaanta jecel ee Soomaaliya inaysan horumar gaarin iyo inaysan wanaag gaarin habeen iyo maalin ka shaqeysa. laakiin waxaan u soo galay 3-4 qodob runtii oo 4 qodobba laga yaabo dadkeena inaysan inta badan isweydiin. maxamuud bare galac aad baan walaal ku soo dhaweynaya long time. xamdaan xidig aad baan walaal ku soo dhaweynaya adigana long time. asxaab hore ay soo gashay ma sha Allah sii share gareeya. 4 qodob ee marka caawa aan rabay inaan ummadayda la wadaago oo mucaarad iyo muxaafidba anfici doontaa waxay tahay kow maxaan isku haysanaa. 2 maxaan isugu diidanahay dawlad taam ah. 3 canaan ku socota farmaajo iyo khayre. 4 cafis. 4taa qodob haddaan ku bilaabo maxaan isku haysanaa markaan leeyahay cid isku dhagan oo isjiidjiidanaysaa ma jirto. laakiinse idinka ayaan idinla hadlayaa hadda i daawanaya waxaad aniga ii haysataan. anigu rabadaan baa soo gelaya horta cafisku wuu inoo dambeyn doonaa. bil rabadaan baa inagu soo foodla waa 7aadkii ugu dambeeyaan filayaa. isbuucan hadda bilaabanaya Britola ay rabadaan ku dhalan doontaa. marka aniga waadi haysataan aniguna dad waan haystaa. dabcan dad badan wax waa ka sheegay sax, dad siyaasiyiin wax ka sheegay waa sax. cafis iyo musaamaxna waan ka dalbanaya caawa. laakiinse dadkan aniga wax ka sheegay iyo kuwa aniga wax iga sheegay markaan isbarbar dhigo idinka ayaa dambiilayaal ah. waayo aniga markaan cid wax ka sheegay cidaan wax ka sheegaya shakhsiyaad maaha dadkan halka cayda igu soo qora maaha kuwa ii soo inbox gareeya maaha kuwa afla gaadeeya maaha kuwa i been fariimta maaha kuwa iga sheega beenta ee hafra maaha. uma jawaabo. wax ugu badan ee aan ku sameeyaa waxay tahay page-kayga kan baan gareeyaa because aniga iskale page-kayga cidna iguma haysto. waxaan rabaa waan soo share garanaya waxaan rabaa waan ka sheegi karaa. dadka aniga marka aan wax ka sheego oo runta aan ka sheego waa dadka aniga xilkayga qaaday oo yiri madax baanu idinahay. xildhibaan ha noqdo, wasiir ha noqdo, maamul goboleed madaxa ka noqdo, anigu xiliga qaaday ummadda Soomaaliyeed buu xiliga u ka qaaday mas'uul buu iga yahay hadduu igu tarkifalo marka oo xoolahayga iyo dalkayga iyo dadkayga oo dulmi ka geysto waan caayaya waana habaaraya waan la dagaalamaya waxaan rabana waan ka sheegaya xaq baana u leeyahay kumana dambaabayo. marka wax kasta oo aan ka sheego qof mas'uul iga ah waa in uu u dul qaato. kuwiina marka ku daba dhumaya ee habeen iyo maalin cayda aflagaadada lacag baad qaadata. lacagta ma ayadiin baa isiisa mise awowgiin baa isiiya. lacag baa lagu siiya, lacag baad sidan, lacag maya. aniga lacag cidina ima siiso. xoogayga ayaan maalaa oo aan ku faraxsanahay. dalkayga lacag kuma iibsan karo. qofka lacagta lagu iibsadana maalin bajaho ayuu u dhaqaaqaa. hal wado kuma taagnaado. qarannimona ma deeqdo kumana taagnaado. hungurigiisaa deeqa maalinba meeshuu ka helayo ayuu u leexdaa. soomaydaan garan. idinka marka waan idin caafiyayaa. cafis iyo musaamax ayaad iga tihiin dhammaantiin. anigana cid kasta oo dembi iga tabanaysa walow aniga aan aaminsanahay qof aniga xil igi qaaday oo yiri mas'uul baan ka ahay hadduu mas'uuliyadii gabo oo hantidaydii iyo waddankaygii iyo dalkaygu ku tarkifalo aniga saan rabaan uga hadli karo oo aan xaq u leeyahay inaan uga hadlo haddana still waxaan dalbanayaa cafis baan dalbanayaa. bil rabadaan baa soo gelaysa. bisha rabadaan ay soo socotana insha Allah barnaamijyo kale aad u muhiim ah ka hadli doona haddii Ilaahay yiraahdo. dhammaanteena halkaan aan iskugu iman doono. marka
waxaan rabaa anigoo aanan aad u doonayn inaan ugu sii daaho maxaan isugu diidanahay dowlad taama innaga hadda waxaan isku haysano waa maalaa yacni aniga hadda markaad aniga inboxka iigu soo qorayso waan ku dilayaa meeshaad joogto baan garanayaa waan kuusoo cid baan kuusoo adeegsanayaa dabagal baan kugu haya war ilaahay ka sokow cidan anigu ka baqaa ma jirto cid ilaahay ka sokayso oo aan ka baqaa ma jirto cid ilaahay ka sokayso oo wax yeeli kartaa ma jirto laakiin adigu maxaa tahay maxaad ismooday maxaad isu haysataa you're nothing at all wax alla waxaa tahay ma jirto cidaad wax yeeli kartaana ma jirto maanta aniga qofka mas-uulkayga ee meel maamulka ah aniga igama aha mas-uul cabdiweligaas igama aha laakiinse ummad aniga ila mid ah oo walaalahay ah ayuu mas-uul ka yahay axmed madoobe aniga mas-uul igama laakiin ummad walaalahaya ayuu mas-uul ka yahay oo uu yidhi mas-uul baan ka ahay khasab ahaan ku haystaa ninka la yidhaahdo dhammaan inta maamul sheeganayso oo dhan dad aniga ila mida ayay mas-uul ka wada yihiin sidaa awgeed dadkaas inaan u hadlo xaq bay u leeyihiin mas-uulka qaaday awooddaasna inaan u sheego khaladkiisa sida aan rabana aan uga hadla xaq baan u leeyahay waayo asaga ayaa mas-uuliyaddaasi qaaday adiga marka maxaa ku haya maxaa rabtaa adiga markaad isoo caynaysid isoo habaaraysid iisoo hanjabaysid iisoo xaydxaydanaysid maxaad rabtaa adigu maxaan kaa galayo dembiya maxaad igu haysataa miyaad iga xigtaa dadkan madaxda ah ma dadkaad ka xigtaa kama xigtid igama xigtid aniga cid aad ka xigtaa ma jirto qofkani mas-uuliyadda markuu qaado war aabbaha hadduu yahay waxaad ogaataa maalintuu mas-uuliyad qaaday aabinimadii adiga uu ku ahaa waa kuu gaar laakiinse ummad kaloo aabba u noqday ummad kaloo mas-uul ka yahay adiga aabbaha walaalaha waad u simantihiin ka adiga walaalkaaya aabbaha markuu wuxuu rabo weydiisanayo xor buu u yahay siduu rabuuna u weydiistaa waayo adigana wuu ku dhalay isagana wuu dhalay sidaa awgeed qofku markuu yidhahdo ummad baan madax u ahay hadduu xataa aabbaha yahay adiga maalintaas ummadda kama xigtid kamana hor istaagi kartid haddii jidka lagu dhagxanyeynayo kama hor istaagi kartid adiga wuu ku dhalay laakiin ummad buu u dhaartay war caqli isku yeela oo aniga waxba haysoo inbox garaynina waxbana ha iisoo hanjabinina waxba igama qaadi kartaan idinku bokole xiiqaya laakiin runtaan rabaa ummadda Soomaaliyeed maanta inaan u sheego waliba inta caqliga leh ayaan rabaa inaan wax u sheego waxaan idin sheegayaa waxay tahay maxaan isugu diidanahay dawladnimo taam ah waa qodobka labaad maxaa inaga hortaagan dawlad oo shakhsi difaaciisa iyo shakhsi ilaalintiisa isagu ummadii hadda axmed madoobe markaad ummadda ka hor istaagaysid aad leedahay maxaa wax looga sheegayaa waa malagayaga qaar bay ii soo qorayay ya islaam axmed hebel wax bilaayo jinni intay saa isugu soo daldalaan bay wax ku leeyihiin saasuu noo yahay annaga war miyaad caabudaana miyuu idin abuurtay qabiil baan ku ahay waxba waxay kuu taraysaa ma jirto war annaga dawladnimo ayaana deeqda shacab baa tahay dantaadu maxay ku jirtaa ma inaad shakhsi xun oo dad kale u daba dhaqa Ethiopia ka daba adeega Kenya ka daba dhaqa imaaraad cagaha u soo maydha inaad difaacdo iyo inaad ciidaada iyo dalkaaga iyo dadnimadaada iyo dawladnimadaada adkaysato kee ku qiimo badan dadka aniga isoo inbox gareeyay 24 saac ayda isoo qoraya ee amaanaya gaas iyo axmed madoobe ayaan su'aashaas weydiinaya ma aha dadka xalaasha ah ee caafimaadka qaba caadiga ama aha dadka xanuunsanaya ee jiran ee aad moodo inay malaa'ig yihiin axmed madoobe iyo gaas 24 saac ay tamayo ee difaacaya ee dadka maxaan ku radaad moodo inay ka xigaan war cid kama xigtid qof xil qaaday cidna kama xigsan kartid qofna kama xigsan kartid maxaa kaa hortaagan dawlad inaad yeelato dalkaaguna uu noqdo dal loogu soo hagaago hal madaxweyne iyo hal dawlad oo awood leh oo ciidan leh maxaa kaa hortaagan dawladnimadu ma waxaad mooday inay ka go'do shakhsi ka go'do dawladnimadu ma waxay ka go'daa madax xun oo maamul goboleed ma waxay ka go'daa madaxweyne misaal xildhibaan oo waaran ka go'da kama go'day shacabka ka go'da idinka go'da saad wax rabtaan bayna idinka go'da idinkaana la rabaa inaad la xisaabtantaan inaad idinku wax noqotaan oo aad wax raadisaan shacabka ayaa laga rabaa ee ma aha ninka madaxda ah ee raaxaysanaya ee isagu la ilaalinayo taangiyada lagu ilaalinayo ma aha adigu dantaada garo sida aad xur doonayso iyo waxa aad rabto sheeg dadkani adiga ayay mas-uul ka yihiin adigina adeegayaal ku yihiin ama maamul madaxa ka ahaado ama federal madaxa ka ahaado adiga ayay ka yihiin mas-uul adiga ayay ku yihiin shaqaale adigu ma tihid shaqaalahooda ma tihid laakiin adiga shaqaale ku yihiin oo ku shaqeynaya
hadday kuu shaqeynayaan adiga ayaa la rabaa inaad runta u sheegto xasan cali khayriye farmaajo maanta waxaa rabaa marka inaan runta u sheego waan idin ammaanay waan idin hor istaagnay dad baan idinka difaacnay shisheeye iyo sokeeyaba waan idinka difaacnay sax laakiinse difaaca aanu idin difaacayna maaha annaga inaanu idin jecelnahay maaha inaa wax gaara noo tihiin maaha inaan dadka idinka xigno maaha inay dadku idinku hayb yihiin maaha inay dadku dan gaara idinku wataan maaha inay shakhsiyan idinka faa'iido idinku qabaan maaha laakiinse waxay idinka dhex arkeen dan bay idinka dhex arkeen guud oo ummadda dhan u dhexaysa dan guud inaad ka shaqaynaysaan ood corruptionka la dagaalamaysaan waa qodobka ugu horeeya aniga ama aan farmaajo ku taageeray ama aan khayro ku taageeray qodobka aan qodob ka horeyn wax walbana aan ka hormariyo waxa weeyaan waa corruptionka adduunyada waxaan ugu necbahay ifka ilaahay wuxuu soo saaro corruption baan ugu necbahay waxa ugu horeysa marka ee aan ku taageeraya